haddaba quraanku wuxuu noo tilmaamay dadka inta qaybeed u kala baxayaan intaas qaybood markaan sheegno waxa la rabaa marka adoo cidna aan u danaynaynin adoo intaad isqiimayso qaybta ugu fiican inaad ikhtiyaarka ku doorato waxa ama la iska abaal marinayo aakhiro ama la isku ciqaabayo waa doorashada oo qofku doorashada haduu wanaajiyo oo wax wanaagsan uu doorto oo khayr ah inuu waxaas wanaagsan doortay ayuu ku mahadsan yahay lagana thawaabinaya haduu baadil iyo xumaan uu doortana inuu baadil iyo xumaan doortay ayaa lagu ciqaabaya ilaahay haduu rabo dadka kulligood iimaanka wuu wada siin lahaa saas ilaahay wuxuu leeyahay walaw shaa rabbuka la aamana man fil ardi kulluhum jamii'an haduu ilaahay doono waxa rumayn lahaa dhulka dadka joogo dhan way rumayn lahaayeen lan iimaankan ilaahay baa bixiya qofku rabo qalbigiisa ku tuura wax lacag lagu soo gadanayo ma iimaanka qofku ilaahay la jeclaado oo ilaahay uu raali uga noqdo inuu mu'min noqdo ayaa la siiyaa walaakin allaha habbaba ilaykum al-iimaana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan yani ilaahay ba yani idinku qurxiya qalbiga yani qalbiga wa alamu anna allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi ilaahay ba kala teeda qofka iyo qalbigiisa bimaana qalbiga hadba dhinac baa loo jeediyaa oo mesela qofka haduu ilaahay jeclaado يعني قلبي جيسة واسد مثلا دلالة أما ديشك أو كله هتبقى على لو أدينايا هتدو قف عنه يهي إلهي وحوق أدينايا أو قلبي جيسة وجعلسينايا نور كإيمان كإسلام ماذا هتدو قف عنه يهينا دينا حمعتله أي قلبي جيسة لو جيدينايا مرك إلهي دور بدك المؤمن يكرر لها لكن بدك وحوق داي أيه إلى اختيار كذا قدرتان ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هدان دون إلهي وحوري دادك ودو حانسين لهن أنو قيبين لهن هنونك هدي مركا لون دادك الله قيبيو وحلو وابا المريا للرواية محلو وابا المريا لها لأن هذا واحد كسبتي معه ولا جايز كسيه لكن أديك إلهي وحوري سميي قفك بين آدم كا يا وحوك نحجلي سيهدان مثال يرسو كوبنا ودادك إفهمان موبايلا ذهنا نوكاله وحيلين سيم 1 iyo سيم 2 مثلا لبا سيم هدو قادو سيم 1 iyo سيم 2 gaas qof walba waxa ku jira سيم 1 iyo سيم 2 oo ah midna waa xumaan ya ka buuxda midna fiicnaan ayaa ka buuxda adaa marka mobilkii inaad daarto oo kii aad online ka dhigi lahayd adaa gacantaada ku hayst hadaad xumaatada xageeda aado waxa daaranaysa kii xumaa kaasa ku shaqeynay marka kii khayrka uu ka dansananaay سأسأل الله أن تودارتي سورة والشمس وضحاها ودارتي والشمس وضحاها وانكو دارتي والقمر إذا تلاها إلى لا يجار ونفس وما سواها نفتي عليه كي ينكو دارتي جوابتي واتنا على كده فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفتي يا حبيبي فألهمها إلى يحكو إلهامي فجورها وتقواها في قف كيبا الله بضيبا ويكون حجران بمعنى وحال هذا الاستعداد وحود ديارسن yahay hadii loo daaro motorka oo fujuuraha faajirnimada hadii loo shido oo la tarbiyeyn waayo oo qof xun oo noqdo oo akhlaaqda ay ka dhimato waxa la fiicnaanaya xumaatada saas ilaahay wuxuu yiri dadka xumaatada sameeya qalbigooda waxa uu madoobaaday si kolba dambigi ay galayeen dhibic madow loogu dhibcinay ya qalbigooda dhan madoobaaday kala bal raana ala qulubihim ما كانوا يكسبون وحي كسبنايين أي قلبي لم ذوبادي قفك مركو قلبي كم ذوبادنا وحي وناق أها معروف كأهانا حمان ولا نقنايا وحي حمان أهيدنا فعنان ولا نقنايا محايا قلبي سيا ساس نقضي قفك مؤمن كأهانا وتقواها أيو قاضنا يوم وقف تقعة مركا لبضا بو إنسان كو كجيران نبينا صلى الله عليه وسلم سقو ير وأري للجوغة يا ملايقو إمادين كتبضا السيرة واتكو عركتين حادثة شق الصدر دعوادي النبي لابتي سل الدلاعناي سو اري لا جوغ او ير او اسلا جوغان ويلشي اي يعني حليمه سعديه قويسكيدي اها او اري اسلا راعين مقشه يا نمن دار عد قبا ايمادين way qabteen way seexiyeen wiilashii kale way carreen markay arkeen ninkan wiilkood oo la qabtay si ay reerka ugu soo sheegaan reerkii u soo sheegay wuxuu walaalkii qurashiga ahaa maanta niman baa u imaaday ayagoo jiifiye waxay ku sameeyeen ma garanayne ayaan ka soo cararnay reerkii baa soo baxay oo markaasay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo soo kacay oo waxoogaa yani ay ka muuqato naxdin ay ka muuqato ayay ka hor imaadeen markaasay weydiiyeen maxaa kugu dhacayo markaasuu niman caadon baa iga qabtay wax igu sameeyeen ma garanayo maxay ku sameeyeen xaadithatu shaqi sadri laabtiisay dilaaciyeen markay dilaaciyeen waxay ka bixiyeen
wax madow oo gudaha ku jiray ka saareen markii ay waxyigu ku soo degay oo dambe ayuu waxa uu yiri waxaasi wuxuu ahaa dalika hadhu shaytaan minni yani shaytaan meel oo ama igu waswaasin laha ama xumaan ka soo gelaha waaba liiga bixiyay ma zamzam baa loogu dhaqay kulli waxa laga wada dhigay nabiga oo dhan wada khayr laakiin innaga bal is weydiinay yay malaa'ik qalin ku samaysay oo ka bixisay ma jirto wixii ayna dhex fadhiyaan marka waxayna dhex fadhiyaa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha labadiiba qofka marka hadii uu misaad ku soo xirmo oo culimada ka agdhawaado oo quraanka uu barto oo la wacdiyo oo iimaankiisa kor loo qaado ilaan iimaanku ogtiino yaziidu bidaa'at wa yanqusu bil maasi wa tan yiraahdo marka qofkii wa taqwaha ayuu noqonayaa hadii wax tarbiye la waayo ama asagu tarbiyada uu diido oo ilaahay ka cabsan waayo wuxuu noqonayaa midka faajirka ah oo waxa uu sameeynayo alla yaabayso qofka markuu waxa sameeynayo yani sidoo aha ma ilaahay kama cabsanaay maxaa ku dhac waxaan miyuna ka xishoon wax adigu wax weyn kula oo yani sameyn lahayn yaa qof caadi ah waxa iskala tahay qof caadi ah nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofka muuminka iyo qofka munaafiqa amalka say ku kala yihiin waxa ay sameynayaan qofka muuminka ana dambiga haduu galo wuxuu ula mid yahay sidii buur ku soo dumayso oo kale sida uga cabsanayo oo yani maxaad u dambaabtay lan waa bin aadam u dambaabi karaa إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي كوا كلنا وشياطين ولا لا نقضينا يعني ما خصوصنا إن يصير نقضان لكن قفك مؤمن كمرك يدب وكدعه يعني والولاية سيدي بورك سود دنتي أو كلا يدم بجليه قفك منافق هنا وحال الدقسي كركي سفولي أو يسكدوا لي wax ay uga duwan tahay meel dambiga uu sameeynayo marka yani sidaas loo sheegay marka in qofku uu dadaalo ayaa loo baahan dadku marka waxay u kala baxayaan saddex qaybood suuratul baqara bilowgeeda mun soo akhriyo quraanku ma ka soo dhex bixinayna suuratul baqara bilowgeeda waxa lagu tilmaamay kitaabka quraanka laga hadlay iyo sida ilaahay u soo dejiyay qaybta ugu horeysa marka waxa la yiraahdaa al mu'minuun ayaa la yiraahdaa al mu'minuuna qaybta ku xigta waxa la yiraahdaa al kaafiruun qaybta saddexaadna waxa la yiraahdaa al munaafiquun صدح بصورة بلوغ هذا الوجه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قيبت سبحانه هذا المؤمنون ومؤمنين تلمامهم حاكم ذا ويبين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآية أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون لم بركوا وكاسمرك المؤمنون الله طيب تكحلت بحال هذا ويديد المؤمنين توحي أي رميان أي أنكم جرنوا إنا كجرنا ما ينقرصننا برنامجkaas la soo istaageen waxa dhaanagu mar rabna waxana sheegaysaan magacood kuwaas waxa in alladina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim yani kuwaasna waxa leeyahay halkaas ka baxeen waxa leeyahay wax u sheegto iyo hadaan u sheegin waa isku mid qalbigoodu ilaahay daboolay maxay yeelay ayaga ayaan diyaar ahayn ilaahay wuxuu hanuuniyaa qofka asaga ogolaada in la hanuuniyo qofka asaga xumaatada aadana حماتنا بالوصي وضع ساس القرآن كنا شيء إلى حر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وأعطاهم تقواهم يعني وقفك وناك الربا إلهي وناك سوءك المين يا أو السين يا قفك حماتا أذنا قل من كان في الضلالة فليمدده الرحمن مدا قفك بعض ما أذنا إلهي أكر لي بعض النمط maxay asaga doortay ikhtiyaarkiisu ku doortay kuwaasna marka waa qaybta labaad waxa la yiraahdaa kafaru sawaa'un alayhim qayb kale waxa jirta kuwaas ka dambaysa oo la yiri wa min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil aakhir wa ma hum bimu'minin bal quraanku soo dadku kala cadeynaa fiir wax la isugu gabaray meeshaan ma jirto qofku waxa la rabaa marka inuu noqdo qof mu'min ah oo ilaahay uu ku yiri ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan mu'min dhab ah oo wixii loo diray ogolaaday waa la gartay أما إنه نقضى أولئك هم الكافرون حقا وكقالوا رجال لماذا سنة طب أي كتاب حقا الاستاغي لبضع سؤال لبكوح أو مركب وين وحاول حاجة مركب لبضع سكوحات كوح صدحات أو مركب سلو في ريو يعني وحي كل حجران منافقين لهذا منافقين حقا لقاها حقا جوغان منافقين توحي جوغان مسلمين تيكون حجران مؤمنين تيكون حجران ayagu se
ما يعني أفكوا ويكشاجايان لكن هبدقن كودو معه ساس إلى وحور أيوة حيدايان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي دايان هذا إلهي بكن في حور وما هم بمؤمنين وقت إيمانك حوق معه ويقين يا قلبي شاغ شمع مؤمنان أهي ورمدي نجوك ما يوان أهي إلا وإلا وسيادكو تاي مركا أبتر ما متي إيدي كار ما مؤمن ماذو كار لقوسنا أو فهمت ببوحسد ما شاكلو حتى هاي أركان الإيمان أركان الإسلام دين وحلا إلى هذا يعني أو إن الرماية أي تاي أو إن الوعمل فلا أي تاي أيام ماشي عن تعالى هذا مركا لما مدو مكوفرا إن هتسيب أضع عدكو قصبي ساي سنجرين قلعته أو ترى هذا دين إلهي سيد إلهي أسود الجي أيان رال أوقعي وقرآنك وتلمامي للمؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إن المؤمنين هذا الكود وذكر أفرا مله وإن إدهان سمعنا وأطعنا وأن أقولاني سيد إن إدهان بأفرا كاسوامد مد كان كلامك أو اللي يري ما مؤمن معها وحلم ذا مثال كان صوت وينه حروف حاجة سوى ذاك عربي مركي حرف حروف تجايدة جيمك يا هذا يا خاضو حق صورك مركي لا صورها يو اسكو سبا الله صورها اسكو سبا الله قرا لكن waxay ku duwan yihiin jiimkuna dhibic buu hoos ku leeyahay oo inuu hoos dhibic ku leeyahay jiim ku yahay khaaduna waxay khaa ku tahay inay kor dhibic ku leedahay hadii dhibcahaas laga wada bixiyo saddexdooda maxay noqonayaan xabay noqonayaan saddexdoodaba hadii dhibic baan meesha la saarin saddex oo meeshan taalay noqonayaan si marka saddex xaraf ay arintu u noqoto mid dhibic ba hoos laga siiyay marka hadaad aragto mid dhibic hoos ku leh kaas xamiya maya waxa la jiima la yiraahdaa kan hoosta ku leh kan korka ku lehna waxa la yiraahdaa khaa la yiraahdaa ka aan korna ku lahayn hoosna aan ku lahayn waxa la yiraahdaa ha maxay ha ku tahay marka haadu waxay ha ku tahay dhibic la'aanta hada marka saddexdii qaybood aan sheegno marka جيم من الجمال كسو قاضو قروحدا iyo qofkii ogolaada Allah abuuray inuu caabudo waa muuminiinta jiim khana waa khata waa wax gafsan oo Ilaahiga abuuray diiday oo yiri mar rumayneen Ilaahay waa gaalada ayagana xaba ku soo haray marka xagan muxuu yahay marka xagan waa munaafiq jiimna ma aha khana ma aha quraanku muxuu marka mudabdabina bayna dhalika la ilaha ulai wala ilaha ulai yani munaafiqu kana ma aha كنا معه وماله دحيس دحدو كجرا منافق على دهكاس بريجي هو النبي صلى الله عليه وسلم حل جيسي ويجري المنافقين تو وحمضح وهنجري نيل يقانو إلى عبد الله بن أبي ابن الصلول أيام مضح وهنجري مدينة جوجين وإسقرنا المنافقين اللي يجري القرآن كان سود يجري منافقين تاس مركا منافق نما محاكا ده محو منافق قف كانوا نقضي قف منافق وحقول نقضها wax asaga gudihiisa ku jira oo uusan muujisan karin oo uu rabo sabab ay ku noqotaa nifaaqa ninkan oday hadaan tilmaamayni wuxuu munaafiq ku noqday Madiina waxa deganaa laba reer oo la yiraahdo Aws iyo Khazraj way isdagaaleen muddo dagaalamayeen markii ay muddo dagaalameen ayay waxay war dagaalka intaan iska deeyno aan heshiino madax aan samaysano waxay waaya madax ka dhiganaa waxaad ka dhiganaysaan Abdullah ibn Ubay ku heshiiyeen asoo taajki loo tulayo oo madaxnimada loo diyaarinayo nabiga sallallahu alayhi wasallam imaaday oo soo hijrooday nabi meel uu imaaday ma cid kala ka hadli karto u soo dhawaan karta dadkii oo dhan nabiga ay raaceen asaga hogaamiye u noqday marka ninkan wuxuu yiri marka ninka sababta kuugu noqday ee ku gafiyay inaad madax noqoto dadkiina ka kaxaystay oo dadkii ka raaceen ninkaas miyaa dantaada ka shaqeeyay dantaadi meesha waad ku gaftay afkana ka ogolow oo iska ogolow inaad la ilaaha illa allah iska tiraadid oo afka aad ka dhaadid laakiin gudaha marna ha ka rumaynin inta lugoyn kartana lugo markaas intuu lugoyn karay waad artay waa inta dhacda ah ee uu sameeyay ninkaas oo nabigu ku dhibay yaani intuu lugoyn karay mara waxa dhacday Quraysh warqad u soo dirtay markaas waxa dhana Abdullah ibn Ubay waan maqalay inaad soo dhaweyseen ninka anaga naga soo baxsaday haddaba waxaad samaysaan ama ninkaas iska soo eriya ama asaga iyo macal idinkaba waan idin la dagaalaynaa warqadii Abdullah markii loo keenay wuxuu bilaabay marka inuu dadkii reer Madiina kala saara marka oo yiraahdo Quraysh ba warqad ii soo dirtay dagaal bay inagu soo wadaan waxay leeyihiin ama ninkaas iska soo eriya ama ninkaas iyo macal idinkaba dagaal idin ku soo qaadaynaa ee aan isdiyaarino nabi sallallahu alayhi wasallam markii ayuu maqlay wuu u yeeray marka si wuxuu la hadlay luqadii uu fahmay ayuu kula hadlay wuxuu ku yiri Abdullah
haddii magaaladan madiina dagaal uu ka dhaco horta waxaad ogaataa waxa dagaalami ee isku dhimani waa wiilashiinni aws iyo khasraj waa niman reer madiina ah kuwa xagga jooga iyo kuwa xagga jooga inta aad markaa isku dhammayn lahayd ilmahaagii waxaas iska daa maxaa yeelay maxay kugu goodeen waa idinla dagaalayna soo maa haddii wixii ayagu ay samayn lahayn ka war adigu aad sii samaysid maxaad faa'iiday maxay kaa qaadi lahayn maxay kugu samayn lahayn soo dagaalun ma ah soo dadkii in la dilo ma ah haddaad dhado isagana dadkaas ii dilin anaa isdilaaya marka waxba maadan faa'iidaynin bas wuu fahmay marka wuxuu bas waan joojiyey kuma jiro يعني كل بدي مركز دمهر وحوق جاري دين الإسلام كشرف دين عرض أمد أيال الرسايا وحوجان وقصر رأي وكر رأي رسولك صلى الله عليه وسلم قيس كي رسولك أيوه حور كألف بان وحوق ألف أيانا وحكى معه وحور رباطتك إنه كالسوني دي أي كوك بين النبي إنه كبابي أو يلاده إذا أعطوك عنان كان إذن كوك رأي بالقيس كي سفيرية وحي سمايين هالكاس وجدوا ودن بيسان أي تهي دومينت دين الإسلام كأو قيادة مهجان كدين تأو النبي صلى الله عليه وسلم إيه وحلا قشوا مركزوا حديثك أو حديث الإفك جبانتي أيو ألفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقال وحماله ومسادك استاجوا يراهو قف إذن كيدن كم مدعى أو نبكيس وغير كي قيس كي وسوجاري يا إيج علنايا والله إيه الكي وخير وحنا هين إن أنا كوجينا يا إيج قبنايا markaas Sa'd bin Mu'adh wuxuu ana ka qabanay rasuulka Ilaahay hadii uu yahay reerkanaga haduu reerkan kale yahayna adaan amraysid markaas Usayd bin Hudayra u jawaabay ma reerkan uu yahay waxaan laga qaadi karo adiga in fidna ka dhici gaartay waa la kala qabooji almuhim yani kaas wuxuu munaafiq ku noqday xukun uu rabay inuu qabto ayuu waayay go'aan wuxuu ku gaaray marka inuu munaafiq noqdo barigaas marka munaafiqiintu wax yar bay ahaayeen waxa ka badnaa mu'miniinta macna xaq hoggaanka iyo xukunka markii la yiraahdo waxa xukumi jiray dadka saalixiinta dadka wanaagsan dadka diinta koriyeelaya ayaa madax ahaa laakiin maca asaf inaga maxaan ugu dhacay caalamka islaamka markaan feerino isticmaalkii markuu ina qabsaday oo caalamka islaamka yani la gumeystay oo muslimiintu ay isticmaalkii ay la dagaaleen war dhulkaanaga nooga bax markuu arkay inuusan xoog ku hayn karin yuu iska baxay laakiin wuxuu sameeyay qawaaniintiisii iyo wixiisii oo sidoodii ah wuxuu inoogu dhaafay kuwa inaga wuxuu idinka idinku ogaay halka ka sii wada ani waa baxay markaas waxa dhacday marka meeshii midna la isgagabin laha berigii hore oo hoos ba gaarada laga jiray la dhihi jiray hadda waaba lagu faanaa markaas wadankeenu wuxuu noqday siyaasad markii doorasho la galaayo waxyaabaha qofka kor u qaada yani sumcadiisa oo hal igu doorto uu leeyahay wuxuu ku soo darayaa markuu rabo dadka inuu u khudbeeyo yiraahdo ana istaahilay hal ay doorto inuu dawladaha oo mid kamid ah dawladaha gaalada mid kamid ah inuu isku nabo oo yiraahdo aniga hadaad doorataan ma ogtiin horta haye ani Mareykanka ay wato ani Ingiriiska ay wato markaas aan idhaahdo war markii lagu wadanaadi baabuur maatay adi baabuurka la wataa soo qof bin aadam ma tihido oo aqal sal lagu wadan kara adiga goorma la isku ogaa in la iswato waxa la isku ogaa in yani la noqdo xor yani aan loo dhaxaynin qofkan iyo wadankiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa la isku ogaaye goormaan isku ogeyn dad aan inaga ahayn in ay madax inaga dhigaan ama ay quraanka soo muunatil munaafiqiinta ilaahay wuxuu yiri ayabtaquna indahum al'izza fa inna al'izzata lillahi jami'a ma sharaf bay waxay ka doonayaan kuwa ayaga sharaf laan had midaan kuwa oo aan ilaahay bar rumaysneen oo istijaa iyo tahaara iyo salaad iyo weysaba shaqo ku lahayn qofkii wax ka sii doona ka war oo yiraahdo anu kaasa wax iga dhigaya afmaamay waxa dhaana bal waxa jirtay la suul goys bal yaado oo badagteediyo afmaamay waxa leeyahay abay gudo yaaldaa waxbay gudo carruurta lagu cabsiyaa waxbay gudaayeen ku gudina la ko afay marka carruurta kamid inay waxba gudaynin markaas wuxuu abay guday adiyo mugudinii ay gudaas abay guday wuxuu adaan gudnayn yaad gudi warta marka qof asayb izaan lahayn oo ilaahay abuurayba aan u sujuudaynin oo aan caabudaynin oo aan tahaaro qaadanaynin cidii sharaf baan ka doonay tiraada way ku lugu aysan marka waxa la rabaa dadku saddex bay u kala baxeen ulaayka mu'minuna haqqan qof mu'min mu'min maxaa la yiraahdaa al-iimaan arkaan iimaan waa taqaan islaamnimo waa taqaan islaamka aan rabno marka waa islaam sidee marka islaamku wuxuu yahay sidii ilaahay quraanka uu ku tilmaamay soo dhameystiran ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam inuu tagay oo ilaahay uu soo deji al-yawma akmaltu lakum diinakum sidii uu ahaa iyo sida hadda laga dhigay isma laha
sidii uu ahaan jiray oo kulli aan ku wada qanacsanahay oo cid gaar u la aysan jirin oo islaamkeenni ah ayaan wax yar tusaale iyo tisfoon ka siinaya kaas waxay tahay islaamku shantii islaam markii la yiraahdo udkur arkaan al-islaam markii la yiraahdo ilmaheena dugsiga quraanka dhigta iyo ibtidaa'iga ayaan u dhignaa arkaanul islaami khamsatun ayaa la yiraahdaa fahamkaas marka arkaanul islaam khamsatun in la sharxo tiir horta maxaa la tiir hadda mesela masaajidkeena tiir ayuu leeyahay ama guryaheena tiir ayay leeyihiin haddaad mesela soo qaado dhulkii baad haysataa aad guriga ku dhisan lahayd markaas waxaad ka taagtay tiirar dhowr tiir baa ku taagan tiirar baa ku taagan ijaarka ay dhibay waxaad haysan ijaarkan uu bay dhibay bishan soo socota waa inaanan ijaar ku sii jirin oo maxaa sameeyay guri baan dhistay hay guriga soo baxay soots afar tiir ama shan tiir oo meel qoqotoma ayaa lagu keenay waxa waa ka guriga aan dhistay gurigaas ma ku soo guuri kartaa oo ma dhigi kartaa sariiraha la soo raro carruurta la soo raro oo maxaa jira tiirarka mu jeedaan miya tiirar ay taagan aniga tiirarku gurigi ma aha laakiin gurigu tiir la'aan ma taagnaanayo tiirku gurigu celiyaa laakiin tiirarka kaligood gurigi ma aha hada mesela islaamka soo lama dhihin bunyal islaam maxay bunyal islaamu ala khamsin fiir hal islaamka waxa lagu kordhisay macnaheedu waxa waaye tiirarka waxaan ahayn baa jira bunyal islaamu islaamku waxa lagu kordhisay ala khamsin shan ayaa lagu kordhisay shanta waxa ugu horeeya shahaadati an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasuulullah wa tawxiidka wa asaaska guri markii la jeexayo intii la jeexo asaas looma sameeyo intii dhagxaan lagu guro iyo shamiindo iyo wax lagu shasho yaani asaaska loo jeexaa tawxiidki marka asaaski waay marka la ilaha illa allah muhammad rasuulullah wa asaaski guriga shantii markii mid oo asaaska aan ka dhigna maxaa soo haray afar soo hartay afartii tiir mid waxa la qotomay 1 2 3 4 kii shanaadna waa ka ay ku taagan yihiin oo tawxiidka oo leeyahay tawxiidka lagu dhawaaqin salaadna lama aqbalayo soonna lama aqbalayo xajna lama aqbalayo asaaski oo tawxiidkii ah iyo tiirarkii oo afartii ah ayaa taagan intaas marka waa bunyal islaam ala khamsin waa guriga aan sheegayno sidaas marka islaamkeenu sidaas ma ahayn dada waxay u qaateen marka hadii shanta tiir islaamka loo sheegaba waa bis shanta tiir islaamka waa muhiimkii islaamka laakiin waxba dhiman dhageyst maxaa dhiman marka waxaa dhiman islaamka waxa loogu talagalay noloshan aan nool nahay inaan ku qaabaysano oo meel islaamkeenu oo fasax ina siiyay oo yiri ayuhal muslimuun qaybtaasna diin la'aan waad ku socon kartaan qaybtaasna diinta looga baahan yahay ma jirto qul inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin nolosheena oo dhan waxa la rabaa in loo hibeeyo la siiyo loo hogaamiyo lillahi rabbil alamin marka afartii tiir soo inuma taagna kii asaaska ah tawxiidka salka ah afarta tiir maxaa dhaxdooda ma dulduleesho adiga maskaxda ku suurayso afar tiir oo taagan oo midna salka u ah tiir walba tiirka u dhaxaysa dhexdiisa way duleeshaa oo hadaa inta laga soo galo way duleeshaa hadii inta laga soo galo way duleeshaa hadii xagga laga soo galo way duleeshaa hadii xagga laga soo galo way duleeshaa guri in la dhisal raba marka meeshaas waxay u baahan tahay marka soo guri in la dhisal ma rabo waxay u baahan tahay bulkeeti in la geliyo oo tiirarkii dhexdooda ahayd in la cubo ama la awdo ayay u baahan tahay maxaa lagu awdaa marka waxa lagu awdaa nidaam la yiraahdo al-anzimatul hayaa hab nololeedka loo noolaado si loo noolaan lahaa ayaa darbiyadii darbiyada marka midalan aan soo qaadno midka ugu horeeyaan soo qaadno waxa la yiraahdaa an-nidaam al-ijtimaa'i ummad marka la rabo in la dhiso bulsho ahaan ayaa loo dhisaa bulsho burbursan waxba ku qaban mayso nabi sallallahu alayhi wasallam markuu madiina tagay masaajidka markuu dhisay hawsha uu qabtay waxa kamid ahaa muxuu sameeyay bulshadii meesha deganeed al-mu'akhatu bayna al-muhaajiriin wal ansar nidaam ijtimaaci loo sameeyay nidaamkaas ijtimaaciga marka muxuu ka dhigan yahay nidaam ijtimaaci muxuu ka dhigan yahay hadda midalan Soomaalida ijtimaaci macnaheedu waa social waa bulshadu sida ay u samaysan tahay ilaahayna sibuu ugu talagalay dadkuna inay si kala ka dhigtaan ayay rabaan iimaanku wuxuu keenayaa marka war wixii aad ka dhigan lahayd iska dayso tii ilaahay uu ka dhigay ogolow arrimaha bulshada ilaahay muxuu ugu talagalay soo ka dhigay ilaahay wuxuu bulshada waan idin abuuray yaa ayuha naasu alaga bilaabay yaa ayuha naasu markii la yiraahdo waa dadkoo dhan xooluhu kuma jiraan laakiin wixii bini aadam ah way ku jiraan cadaan iyo madow iyo arab iyo ajam yaa ayuha naasu way ku jiraan inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waj'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أرميها بلشة مركا بلشة ميل جوجتا ميكل سريسا ميكل في عينهن ما حيكون في عينهن أضوء حواليها هنا تلاذو حيكون في عينهن سيأكل حول بديهن ومبدأ سحاقة وقالوا حيدهن وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا يعني أنا يا كحول بدن هل بيجا اسمك محي سميان برشدو وحيكون كلا في عنتها حوله إلهي مرك حوله إنه كلا في عين من شيء وإلهي وحده إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا حوله وحمة رايان وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى حوله ما وحمة رايان إلا من آمن وعمل صالحا مؤجي مرك هي قالوا وحيدها يان وحنقول كلا بدن هاي تسالها خير قبيلكم وبدنيا قبيلكم ويريا هي كوا وبدني كوا ويرين هي كوا بدني مكوا يربي كفي عين هدي لي هذا أساسي وكفي عين بابورتا أو وضد مريسة بويت شلال ودوين أيا جرت تكسر ويجرتها لما استارجع كوديجن متكنا لمبرا كوديجن متكنا لمبرا كوديجن ولا وضع سباوري كلوين كان أو بويت ده كورا دوجر هذا ما دام أن تكسر كوين هاي بريجا بكقوان مايو وهذا واندردر هذا بكرك كان كذي استاجا أو كرك كذي استاجو وما كرك كذي استاجتي محاول كفي عنه وسيد كفي عنته محاسو مكويني ميزان كنوع عاسة ميزان كي بولشاي كوس عن لهاد معه بولشاي محي مركب كوكلا في عنته قبيل كان يا شعب وحلا وحلا وتلقى سيد تارجلاس باورت الوكلا قرتو كليئة لتعارفوا بس انت سومالي المشكلة وحين هيستا إن لتعارفوا كرلو يرادو مو أقوله هوس بيكوضايان مركب هوسي كعبي نينا بحالي وأمي مركز وجوبك أنتوا قلي وهوس بي كعبي مركز سوى بودي أشكو إسكتر تري وصومنا كلها أنتوا كسومي هوس وكسو عيبه وما ضاع فيري أو بلشوي كلا عربتو كلا وحال السودان الجوني مثلا حكوا برنجرني باور تبي الكاه بصص كده تدكوا أي راحان يو قبيل كيس وكو قرنايا قبيل كيس باور كوايد عادي جالس كالسعودة يو قبيل كيس وكو قرنايا واحد مش كويس سنة دتكي مجرت يمن تواساس أو كلا دخترك ماشي سوق قرنا يا غيرك وياهي مشكلكم مايس لكن سومالي المشكلة هي ستبحي تاي كور إن لتعارفوا ورياته هذو خير كاساناي ما شاء الله وخير أسنقانو أندرس لا ما اسمه سناي ولا قرت ما اللي شيء جايو هذا مرة قبيل شيء إنه حنا هنا نيو سومالي ذو خيره بيلو ما يسرعان خيره المحيط عن ما يعالوا شيئان كل بواسي كوضاني مرك يعني أمور اجتماعية ذو حيتها يعني وحلو تلاقي الشعبي يا قبيل لوجونا تلاقي لتعارفوا ما ضافسيسنو إن لا إسكو برتو لا إسكو أقونصدو إياه ولا إسكو حريريا وفيني ومد مركي ميل جوجت ونقولك إن إسكو حرنتوي في عنتاي سي يعني هذه مثلا هذا مساك أنت كجرتوا وي صاروا بوحة يا وحال مثلا قفل بين عمامات مدح يسلوا حرة هذه مؤذن كي إمامك أنت استلان دهان ماشي أي فردية مدح هنا عمامات كحرة هناي ما قصة يكون قال لا تاي كانوا يقول حرة وحي صف كان ما ترى مرة ما ينكران لكن الدليل هذا كور ليستا قفل بو فاس ماسك على ستة أضو إسكحر هذي لغده قفل بو حران كرا أما عمامات على ستة أضو إسكحر وحين كنا ما ينكرنا دقيقة كل إسكود حير كرنا يعني ومال لو جسوا هجاجو مركا أنو قاس أو لتعارفوا ذنا لأن في قبيلكم حكب اللوضة قيس وكب اللوضة قيس مركا الأساس هايو ويل يجبرها لسوم هريا إلى موت دتكوس بس كسب باللوضين وإن حدث كلا كسب باللابو ويل يجبرها إسجورسنا مركا الجور كان السمينايو سي شرعي أصول ما أساسه إلهي كتاب كيساء النكاح حلال زوجتك وأنكحتك أصلا قبلت صمده ويل كان يجبران إلى وحال سوء مهري سي شرعي أو سي دينته أي قبتيئة الماء يدلين المياه المكلا سيد علي ويبتين حاجة كسب باللابتي زوجتك كذا كسب باللابتي كوح مركي النقدان أنت مركي إسكو أبترعه أو إسكو كوحه وحال القرابة تهينه مركي حتى النكاح كسل سمينا خدنا النكاح الآخر وحكم الآية الوفر فرطه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام حلو له قيس كانوا أنوجي كواد بعته وعلى كاسي هرية أوجي كي أصيب دلائي كاسي هرية عروتي أي دلين والأرحام الرحم كاسي أو أنت إسكو أبتركة أما إسلا دلتي دينتو إنا إسحريرسو صلة الرحم حالي هذا صلة الرحم حالي هذا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا
إلهي بعدك وحو كدغي نسبا معناها كو اسكو ابترسدا او حاجه ويلش اما نمنكا وا لو ابترسدايو wasiirna waa gabdhaha ilaahay wuxuu dadkii ka sameeyay wiilal iyo gabdho waxa la wiilka xaqiisana nasaban waa abtirkii oo intii isku abtir ah waa walaalo wasiirna waa xidid oo waa gabdhaha ayaa soo jeeday xididka oo waa la kala guursadaa marka bulshada markay isku rakabay marka inna way isku abtirsadeen inna way kala guursadeen labaduna waa qaraabo oo nabi sallallahu alayhi wasallam masar oo intee la sujira yaa wuxuu yiri masar ayaad furan doontaane qaraabanimo idinka dhaxaysay hal la xiriiriyo سيري بعد كده حياة حدث بعد كده حياة وحدث حقوية هاي مارية القبطية وإبراهيم بشيء أيام مصر كسو جيدة سو النبي يقول لنا يعني رحم حدثك مركز يعني يقول وناقة أو اللي تعارفوا أو اللي يقولها لكن مركز النقاط ماشي اللي تعارفوا وحكي اللي بدلوا واللي هذا أما اللي يسكون لايو أما اللي يسكون فانو أما اللي يسكون دبو أما اللي يسكون يسو أما ساسنا السمايو ميزانك إلهي كاس معه ميزانك إلهي محويا مركز اللي يسكون برتكدبنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قف إلهي وقدوا ياي أيو كشرف بدايا نبي عليه الصلاة والسلام دتك يا وكرامة بدن مركز مركور نبي يوسف أو نبي أو نبي السيد أو مركز ما حد ويديني سؤالها مركز دم حوري إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني وحساس عيدهم كفر اللي بدن قف كيدهم كتقون مركز أمور اجتماعية نظام اجتماعي ومدينا مركز أنا من عند السنة يعني كل سن إسفانفان إسدلت إسحقرت روح كفي عن مجرته ما أنت قيام مركز لتجنا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون عدس ويدين السماء هيا مركز قولي عندي سين الإسلام كعا النظام الاجتماعي وحين أقول اسمه يسق روح بدن أو عن لكلا سرينين أو ضدك أي سميهين أو قف بقول عصو كسبضي وحكون نقنايا نقطة قبيلك وحلا كسبضا معه وحلا شقيست معه قف أصو انتو شقيست هير نقضي مجرو وإلهي الدونيتان كيسو هدي الدم اللي سقد يكور المرك قولي إذا قف كاس ولا الدلاء محلو الدلاء خير كاس أيوه شيء هيه ورهير كاس إنه رش من الدم ببا يا الدم بكده يا سمير تفلكاس من الذي خلقه يا أبو رقفنا يا رهير كان كدلي الله فعل إلهي وسمي أبو رد إلهي وسمي هدي قف له عقابة كور أولي هذا دم بيجي يصلحون نقضي إلهي محور رهير كان كعقد دقي وأنا ما حيقرب تواياه أنا إسكمان دقيقة إلهي بكر دقي ما إلهي يقول سمي لا دم بي أو تدو قبسنا إنسان ما يا وما كده تدخل معضان كاسي كده يعني مرك يعني أمور اجتماعية مرك تاسكم توست أمور اجتماعية توستا دتكون إسكمديهم waxa lagu kala fadhimay ay tahay alla ka cabsiga nin shaacir wuxuu yiri kun ibna man shi'ta ciddi doontaa ku dhashaadi meesha dooni ka soo jeed waqtasib adaban laakin adigu idab yeelo hadaa adigu idab yeelato qof fiican aad noqoto yughnika mahmudatan an an-nasabi nasabka iyo waxa la sheegayo idabtan aad yeelatay ayaa kaaga filan hadda waxaad ogtiin saxaabiga jiilkii la yiraahdo Khalid bin Walid Khalid waa saxaabigaas jiilka Sayfullah al-Maslul خالد هي معاكم بن وليد كاس واكيه وليد بن مغيرة واتقانان وليد بن مغيرة سورة النون والقلم وما يسطرون انت الصفاء اللي سد بدغي وليد بن مغيرة فلا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك الزنيم نينك السلسله يري ايا خالد دلي مرka خالد انه وليد بن مغيرة دلي واحد دبay ku hayso ma jirto asaa edab kasbaday saxaabi jilil ayuu noqday hay Abu Jahl واتقانان فرعون هذه الامه وابو جهل ده wuxuu dhalay Ikrama oo qaa'id min quwat almuslimin hogaamiyaasha muslimiinta kamid ah marka Ikrama inuu Abu Jahl dhalay wax ay ka dhawaysay Ikrama ma jirto hadaba kun ibna man shiita laakin waqtasib adaban yughnika mahmudatan an an-nasab qof walba wuxuu shaqaysto ayuu yahay hadii kale waxa noqonaysa ku Ilaahay yiri yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu waxay rabaan in lagu amaano waxayna shaqaysanin qabiilka ma aadan shaqaysanin hadaa doonto in lagu amaano waxaadan shaqaysanin baartaa in lagu amaano waad gar darantahay joog waxaad waad shaqaysatay tacliin baan bartay hawl kala qabsaday waxbaan noqday waan isdhisay hawl qabso adigu hawshaasad wax ku tahay man badda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu qofki amalkiisu dib u dhigo reerkaasana wax u tareemayso nidaam ijtimaaci uu inoo dhismay haye darbi ayaan soo dhisnay marka nidaam ijtimaaci loo darbiga labada tiir ee kala dhaxeeya salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka u dhaxeeyay yaan asna waxaan ka dhignay waxa la yiraahdaa an-nidaam al-thaqafi bulshada inay wax barataan rabaa aqoon in la yeeshaan rabaa dhaqan in la sameeyaan rabaa oo diinteena islaamku waxa inoo dirto inaan nolosheena ku qaabayno oo wuxuu ilaahay inoo xalaaleeyeen aan xalaaleysano wuxuu inaga xaaraantinimeen aan ka xaaraan inoo aado faqaafigiina waan dhisanay waxa ku xiga nidaam leeyahay nidaam oo darbiga kala ah nidaam al-iqtisaadi dhaqaale in ummadaas dhaqaale loo sameeyo quraankeena aayada ugu dheer quraanka dhaqaale ka hadlaysa deynta iyo sida loo kala qaato iyo goorta la bixinayo
يا إن لقرو يا مرخاتين الله سمايو يعني مال وحي كسابسن وأحل الله البيع وحرم الربا يعني اقتصادك يعني ونولش ماشي كوكا الصعون لهيد دتك حولها حلاشة انتي شقيستانا والله أمانة وحالي ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق يعني مالك هالكاس وكفي عين نظام كاسنا اللي يسميه هدي مركب مثلا اللي هذا دقالها ده وحيدا دقالها يعني الربا إلى استعمالنا الربان وبنجيو وحيلا شقيسنا أيان عن مسلمين أهين مركز الربا استعمال أيان إلهي نحول وأحل الله البيع وحرم الربا هدات كهذا شوط لو بنجينا الربا إسكداية يقول هذا ماشي وعد لو جماعة بهنا مساجد وعد اللي ماشي بنجي أيان الضحايا إن المسلمين هدانا هاي بنجي يا مساجدكو إسكو سبا ينويين أو نبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت إلا إن ما دين اتق الله في المسجد مساجدك بس الإلهي وقع عصنا لما دين وحال اتق الله حيث ما كنت مالك استود جوجت إلهي وقع عصنا بمعنى شريعة ديسي يدين ديسي ويكون صعون يسا هذا فين الدولة ده اللي ينوسمي استعمارك ينوسمي وزارة وحال سمي وزارة أوقاف يرميها الدين تاس هذا الصومالي ده ما عرفت اسمه خلافان الصومالي وحسكوت الدجالان وزارة ده وحيقولها خير كان وين الله مقعدتين ربطان الرميها الدبدة الرميها جودها قاشان دقة مالية أفر تاس أو ميمس الرميها الدين ترى عدي دنيا الله سير تاس ما يساقكم مالي ورسال وحكوا دين تي أصل كأهيد الرأس مال كأهيد أيضا أي وحكوا توسي لهاين حضرنا متى كله هبص يوم وزارة بحكي دجانة وحضر ما يسوي وزارة ده كله إن الدين تشقق كلهين وزارة أوقاف الرميها الدين تا أي الدين تي لقوه جاي وزارة قاشان دقنا الملتري الله تاس هي ملتري ده هنا كورنيل الله ماشان كورنيل كنا كورنيل كوحال ربا هدور ربا متكنيو هدور ربا خمرة عبي هدور ربا صور ربا يجيلي وقتين وقفك إن هدي نك وانين دولة ذا اللي يرادو يعني وحلوها يستين نك الدولة ده إنه الدين تشغل كلهين دين تنمال يقفك كف الصحراء وأي ترى هذا وزارة ده سالوا ده صدح بلاد أساس عطا فالصحابة كجرتاي دين تا بنانك كجوك صدح بلاد كبعد القصة والنقو ما جرته وزارة قاشان دقة قرآن كوكال وزارة قاشان دقة وحوغاها اللي إن تتكلم تببروا أو أي اسكتوا سان آياتنا كتالا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة حوق يا شالين حوق ومحوياه ألا إن القوة الرمي نوي حور القوة اللي وش يجاي ووح المال الجارسيو هذا أدونك وحقوق لا أتكاذي دولة أي جنتالا ذو ميل فوق جاريان والله قاعد صدا معي القوة اللي أي حق يجسد مركب وزارة قاشاني وحال ربا إنه كوش قيسو تحت قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إنه كوش قيسال ربا وزارة الرمى الدبدة وزارة الدبدة وحي كوش قينيسا ضدك عن مسلم كعين عن لا تعاملينه ما يقاو كلا بحان كوا وحي كوا بحان ويكلا دجالين دجال بقى كلا دحية كوا دجال كلا دحية والله دجاله محيا عقلي وحكينا روح كلا دجالها أنا كلا دجالي ما يمدهيس من هذا تقول حالي قميص أنا لو كلام ما تكسي وقاتي مال وحاجة مرك تكسي إسك قاعدنا أيان مرك وكده جايهم بو وحاجة إسك السيني اللي مهشيو ما لنا ولا ليش أنت عن الفولين بقى أجل إذا ما قاعد يقول جين ماشي عشان رباي نيكم حكي مرك ماشي اللي هشين جري أو أنت عسيو مو اللي هشين مرك حر كل مال دوا صعطاي إن بعد إسك السين دون تا إسك الرع وإسك الرع مال يرمرك وحاجة لو ذي يجوج إنه إسلام ويكون فلان تاعي يوسو تاعي أو العكتية كده درولك ويكون يرات أنت حلو أنت وير تاعي وحكو صدر مركزورين وملفو يبغى سوق هذا ماشي ويدو ده أنت ويكون فلان تاعي داف كيو درولك أنتو الباب كيس كفري وبإنه لا دجال الربابة كي مركو أركي إنه صاف كناي قميص أنتو إسكسيبي ونع الله باكو يلا مرة عاد ما مسلم يقوم مالس ورا حلو مرة عاد ما مسلم يقوم مالس marka waxa way meesha waxaan ka wada yaani haday kuwa wasaaradda arrimaha dibadda inoo soo fakanayaan oo dagaal inagu soo qaadayaan ay rabaan yaani waxa la aniga naga iska daayay ma waxa la waraa muslimaan nahay marada cadna muslimkan ku nahay waan idinka iska celinayna suuratu nisaa akhriye marka quraanku muxuu dhahay kuwa idin la dagaala faqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kuwa waxa jira marka ku dhahaya anu dhaxdhaxaad baanahay kulana dagaali maayo waxana kugu darsan maayo cid kula dagaalaysan ku dagaal maayo kuwaas ayaga ah iska dhaf waxba adigu ha u geysanin
آيات كلمة هذا كوان مثلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا يدهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم كواس والسكع لنا أو فرصتك ولا قاعدة كوان كل الدجالين فما جعل الله لكم عليهم سبيلا كواس إسكعافة فراس هذا وزارة أريمات دي بدو مركا إنه يحيرسوا يا إلى الدجالة يا إلى الدجالين يا إضافة يا إضافين يعني وزارة أريمات دي بدو كمان مقنو إنه الدين تي كل قنته وزارة فصح كقبت مجرته وزارة مالية زكدي إني أرورسو دتك أي دقاليسو خربضة إسكا إلاليسو هذه وزارة مالية تراهو ورمي يدونكو إسبدل بريجو هره سان ما أنجرين بنجية فرنسيسكي وحلص أنا شقي سنة طلياني يهبلوك أنا شقي سنة خربا استعمالا أنا الربا نحكي قاضينا وإني لو ورمايا هين جوبنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات ربا والغبا وهكذا مركا دينتين ودين تسلاس أو يعني هديتها رمي بوشو هديتها ثقافة هديتها بقالة وهكذا نظامك وقدم بيع ولا بدنا تيرود حياة ونظام لها النظام السياسي نظامك مامولك مشكلة وحنا قاعد على موقتها ومدين إسلامك هجامين في عن أو ضدك هجامسان لواي هذا في رصيد ضدك في عناء وحجامين لها ويكم قين ساحبة وحكوا عيارايا كوا هجانكي يسوءها دين أنصابرن يعني دن ودنية أمة هالشقة كلها وحكسي درن قارا وحلقة دادعي إن إسلامكم وحكم إماضه أو حكمه ما والله بحنا وحكينا ما تغنى كريستانك وحيقبان بريبا وحاس دقال كنيسة يا ساينسك مدمر كيودين كنيسة يا لقعت كاذب وحيدا كنيسة دان ميل عنو حرنو هلك هايسك جوبتو لكن نولشة ين صوفر قشنن هل كل واحد سمعنا هاي دع ما لله وما لقيصر لقيصر وحو إلهي ليه وكنيسة يا هلك اسكجر وما لقيصر بقرك وحو ليه هنا بقرك اسكالها سوسو دوانين كوا كانوا حيدا دعي السياسة للسياسيين سياسة markaas aan markaa midna ka hadlayo war waaqac meesha jiro war umada aan dhisno kuwa waxay adi wadaada ba tahay siyaasad maxaa uga hadashaa kuwa wuxuu ku dhaha adi ma aakhira nooga hadashid aakhira waxa ka horeyso horta adduunyo ka horeyso qofkii adduunyo u toosto quraanku muxuu dhahay rabbana aatina fi dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan maxaa uga boodweys rabbana aatina wa fil aakhirati hasanatan maxaa u dhiweys quraanku muxuu dhahay wabtaqi fi ma aataaka allah ad-dar al-aakhirah ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك يعني الإسلام كان هو نظام دميستر أو نولشيا المهم نظام كاس الولاية النبي صلى الله عليه وسلم يخلفاء الراشدين كل واحد لقى سو جاري كتاب كاس القرآن كأن تتكلموا معموله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس تذكر تكوك على سعرتها الربع ما هنا إنا شلفس كلا إنه يالون دهانو قفك حنوصنا الغطفة ومدح أنت مدح إسكت دجانو إدهان كتاب حق إسكت دجان مركو حنوصلوا حقولها تدور هذا هالإيك أنا القرآن كيسارت هاي القرآن بالوصارة هاي كاله قرآن القطفة قرآن القطفة ما حكوا جل ظالم وكتاب كلا يكون حكم واي ومن لم يحكم ما أنزله فأولئك هم الظالمون صمع ظالم صمع يا روح عليه هي كتفة بوه إنه لا يفلح الظالمون بوه إنه بقصدنا ورا سوق بقصدنا قرآن كان وحلا قلت لك لينذر من كان حيا ويحق القول على كافرين قفكم ما يكون نول يا رب إنه قرآنك ولا نول هذا أو كعمل فل أو كرقمه لكن ما يكون صاد أو سكرات والنقضة علماء يقول يا القرآن هاي صارته يعني سيل يسوق أساس ما معناه هذا القرآن كديدنا ما قرآن كسارة لكن وقال إنه لا يفلح الظالمون الظالم كنت فيسان كاسنا مركا وننزل من القرآن ما هو شفاء والرحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة واحد كفايدة مجرته القرآن كان معه ساينس كم وقتها قال يا مسلم وكفايدة دختر داود وحصل الله استعمالها ساسال لها دختر مسلم أنا وجرا دختر قال أنا وجرا محايل اسكو مادي برتين أو ساينس أو يعني قال يا مسلم وأنفع لكن كتاب القرآن كا ما هسيد ساينس كو كلامه قرآن كو أنفعه أو كليه قف رميسن قف أن رميسنين قرآن كو حوتر مايو قف رميسن القرآن كو حوترايا مركا نظام كاسنا إسلام كاسويا هيا بني الإسلام على 5 هذا ضمنين لكن وحباينا قدمن وحنا قدمن إن عيد دربيدي ونصور سنة حاجة محانا هنا أرمي برشة أو ينور دسن رقم كي أو ينور دسن رقالي أو ينور دسن مامول كو ينور دسن محانا قدمن مركا دبولك وبناية ربع دو صوت داتو كر وفيدية بني الإسلام على 5 نودي كر محسيل يلا كر مسكف قرانا مركا مقلاش اسك سو غشو توغ ها سو غلو روب ها سو داتو ما فايس وايلا دبول غوري maxaa lagu daboolaa waxa lagu daboolaa guri dhisan hadii aan loo helin dad iskale
oo gurigaas ilaashada waa laga duminaa si aan looga duminin marka waa inay gurigooda dabooshaan islaamka meesha ugu koraysa ee lagu daboolo waxa la yiraahdaa wadirwatu sinamihi islaamka kuruskiis maxaa waaye wadirwatu sinamihi aljihad fi sabilillah waa lagu daboolay bas wax u soo dhawaan kara ma jirto kii isku day inuu soo dhawaadana quraanku wuxuu noo tilmaamay kuwa ma idin soo daandaansaday kuwa idin soo daandaansaday taad ku dhigtaan fasharrid bihim man khalfahum kuwa ka dambeeya hasi carreena leey bimaana kuwan al-israa'il ma sheegay kuwan meel la saara iyaga waxa leey kuwan sida aad u gashaan kuwa kale oo meesha aan joogin markay maqlaan ha dhaheen war nimankaas niman loo dhawaan kara ma aha kooxdii isku taagtay say u galeen ma aragtay war inaga cararsiya wax ku soo dhawaanay mada hada caalamkan waxay isticmaalaan istiraatiiji la yiraahdo al-hujum ahsan wasila lid-difaac ama ad-darb al-istibaqi wax la yiraahdo yaani dawladii rabta in laga cabsado ma sugto in meesheeda loogu imaado barnaamijkaas iska marinay marka islaamkii korkiina waa laga daboolay marka haye gudaha waxa laga yaabaa aboor inuu ku dhasho aboor marka qaarkood oo tiirarkii soo galay asna waxa looga ilaaliyaa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar muslimiinta kooda caasiga oo guriga hoos ka qodaay waraa dhibka dhaaf adiga salaada tukaniyo guriga naga halaynin yaani hoosna waxaan kaga shaqeynaa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar korna waxa way al-jihad fi sabilillah wal ilaalinaya darbiyadu inoo dhisayin buniya islaam ala khamis way marka dadka muuminiinta waxa la rabaa islaamkoodi wakaas marka waxa la maskaxdaada inuu ugu jiro islaamku waxa laga yaabaa marka hore inuu kuugu jiray shanta tiir oo taagan inuu guri ku ahaa dhici karto laakiin waxa rabaa inaad ogaato shanta ku taagan kaligood guri ma aha laakiin muhiim u yihiin dhinacyada dhan oo laga soo buuxiyo oo kor laga daboolay oo hoos laga waardeynaayo oo sidaas ah al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina kaas marka qofkii inugu diidaaya oo inugu coloobaya uu inaga gardaray war maxaa naga rabtaan maxaa ma yasaas u dhahay ana islaamkeena saas hadaad islaam kale oo saas aan ahayn aad haysaan idinku soo sheego oo intaas aan ahayn oo la dhahayo waxa la rabaa islaam oo si doon laga yeelayo islaam oo aan lagu dhaqmayn kitaabkiisi sidaas ma ahayn si la isku ogaa ضعف ayaa la yiraahdaa ummadda islaamka way daciiftay way jiratay laakiin haddana alxamdulillah hadda way soo caafimaadaysaa bari hore waxaa jiri jiray masaajidada waxaa buuxin jiray odayaal marka qabriga isu diyaarinaya haddana odayaal way joogaan oo dadaal badan oo taraawix markaan tukanayno dhalinyarada haday caajisaan ay ku daydaan oday hebela taagane war isku xishoonay taraawixda tukale isdhaw way jiraan laakiin inta badan dhalinyaro ayaa soo baxday dhalinyaradaasi marka waxay mustaqbal u muujinayaan fahamka islaamka ee saa u dhameystiran inay marka waxa loo baahan intay walaalo noqdaan maanta muslimiintu waa laga badan yahay dad kala ka badan laakiin bishaarada waxay tahay diinta ugu badan ee la soo gala maanta waxa la isku waafaqsay waa diinta islaamka marka diin la soo galaayo oo socota ilaahay diintan asaga ilaashana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun wayna guuleysanaysa biidnillah marka cid ay ku guuleysan lahayd adaga kamid ah marka aad inta dib isugu noqoto baabuurka wuu socdaa boosajadu taagan yahay diintani way guuleysanaysaa in tansurullaha yansurkum aday sharaf ku tahay soo raac hadaa soo raaci wada tiraado ya akhay islaamkan iyo dibkiisa iyo anay shaqo ku bariyo barnaamijkaas iska istaagaya adigu diin la'aan waxa noqon maysid laakiin diintu adiga la'aanta waxba noqonaysaa wa in tatawallu yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum ilaahi subhanahu wa ta'ala ka bariyayna inuu diinta ina waafajiyo dhalinyaradan diinta jecelna ilaahay inuu diinta u fahamsiiyo xigmad iyo faham iyo cilmina ilaahay inuu siiyo ummadda islaamka meel ay joogtaba ilaahay inuu u kaalmeeyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhibaato ay ku jirtaa ilaahay dhibaatada inuu ka qaado kuwa gudaha ku dhibaataysan ilaahay dhibaatada inuu ka qaado kuwa banaanka u soo baxay oo caruurtoodii iyo tarbiyada ku rafaadsanna ilaahay inuu caruurta u toosiyo caruurta ilaahay inuu hagaajiyo kuwa dhalinyarada ah ee balwada iyo daroogada iyo xabsiyada iyo meelaha galana ilaahay inuu siraad al-mustaqimka ku soo aadiyo oo ilaahay uga dhigo waalidkood qurrat al-a'yun ayaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu muwaafaqa caam inuu soo dejiyo kelimadeena inuu mideeyo cuqdada iyo isnacaybka dhexdan ilaahay inuu inaga saaro ulfo iyo isjacayl ilaahay inuu soo dejiyo dad walaalo oo diinta islaamka walaalo ku oo diinta islaamka isla hirgeliya allah inaga dhigo aad iyo aad u mahadsantiin ilaahay idinka khayr iyo thawaab badan idinka siiyo inta aad dhageysateen iyo i'tikaafka masjidka aad baan idinku mahad celinayaa imaamka masjidka iyo jamaacada masjidka maamulkan ayaguna mahadsan yihiin hadaan idinku dheereeyeen raalli ahaada diinta islaamku ka sheekaynteeda iyo mawaadiicdeeda wax dhamaanay ma aha hadii la wado laakiin hadba intii la kari karo ayaa la isxusuusinaya وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إلهي إنه أنفعه إلهي إنه أنفعه دينتنا الله إنه قويه إننا عزيز الشرف الله إنه سعلي وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته